iyadoo ay dhawaan ahayd markii uu TV-ga madaxa bannaan Nabad TV baahiyay warbixin ka hadlaysay qaabka ay xawaalada Dahabshiil u qaadatay awaamirta dawladda ee ku aadanaa kala fogaanshaha dadka si loo gaashanto caabuqa COVID-19 shacabkuna arrintaas ku dureen xawaalada Dahabshiil ayaa haddaba waxaa maanta noo suurto gashay inaan arrimahaas wax ka weydiino maarayaha guud ee xawaalada Dahabshiil ee magaalada Jigjiga isagoo sheegay in maalgashiga dhismayaal ay ku shaqeeyaan ay ka hortaagneed xukuumadii hore ilaa haddana ay diyaar u yihiin maalgashiga xarumo ganacsi waxaana hadaladiisa ka mid ah good condition taasi waan jecel lahay inaad weydiiso su'aashaasi waxa weeye magaalada waxa soo dabaqiyadoo ka dhisnayno hal dabaq ka dhisnay baan arintaas anagu ku aansanay inaan sameeyno waqtigii maaragtay maamulkii hore uu wadanka ka jiray ayaanu arinta codsigeeda soo bandhignay daawud baan ka soo bilownay على كل حال داود دبي أرنتا سنو سوري إلا مدحويني ما الله كلنا أرنتا وأنا على رقعتي ولي وأنا السودوي هذا الذي سوى حكم إذا هيد إسكت ده إذا كان صوماليه شاينا إنه ديارنا هاي أدي ودنا كمال قلينا يعني شاينا إنه ندرس إنه ديارنا هذا الذي سوى كم إذا هيد مدحوينا وأنا رياضنا وأنا خلبت بدني وحن حتى لعكتي بتشت كيلو ودسيلها $2 مليون ayay baaskareeyeen shirkadu baaskareysay anaga waxa weeye 3 maalmood gudahood ayaa nooloogu dhameeyay sharcigii dhulkiina la siiyay dhamaantii haddana ma dhicin waxa weeye inta kadib anagu waxaan sameeyay anigu shirkan consultancy ayaan agreement la galay in ay design-kiina noo soo diyaariso bidna noo dejiso waa boardka hadda sawiraysay design kina noo samayso bidna noo soo dejiso waaray sameeyeen arrintii way fuliyeen 3 bilood kadib markii aan meeshii inaanu boorashii ku taagno dabacnaa shaqadii inaan bilowno dabacnay ciidan baxbad umba naga horiyay arrintii halkii bay markaa ku caadilantay mana isuroobin waxoogaa niyad jab bay keentay arrintaas niyad jab bay keentay midda kale waxaan ku sheegayaa dhulka Soomaalidu degto dhamaantood dawaan ku leenahay magaalo walba Soomaaliya degantay qabaylkiisa degan yahay waxaan ku leenahay dabaqyaan ku leenahay anagu ku leenahay shirkadu ku jirta laakiin halkan ma ay dhicin kulay farsamo xumo xagga dawladii xilliga jirtay naga timid bay u suuroobi weeyay arrintaas waqti kasta oo la joogo waxaanu diyaar u nahay in aanu maaragtay wixii waajibaad ah wadanka naga saaran inaan qabano tani waaba dabaqaanu dhisana waa mid anaga noo faa'iido أنا فايدة أنا وما تكون عاونا بحنا شرط الله عباري مركز دحين لعكتي أوجو بدني دافشيل ما بحسن لعكتي أوجو بدني دافشيل ما بحسن مليون لا بقوله كم ببيحيان شركة بحسن ما يجري سلا أيتهاي دبق الله دس وروح عند يارنا أذيك أساسي جيب الشراء وحيبا أدخل يبقى هذا هو غبان أنا بقى غبان ديارنا وحنا أنا بدي سديس كده وهذا عندنا ليش غير سهل لدي بركة ونسوي دويسة أو وحنا أنا ما أعرف ديار تونا هي من دياره